Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Said Cali gabadhu dilay oo la yiri magteeda aabaheed ma laha waxa iska leh ninkii qabi jiro oo dhintay ninkii xawaadle aabihiis baa iska leh waxaan rabaa inaan ka hadlo badii Soomaaliya ee la dhahayay Muuse Bixi baa gatay ayadana waxaan rabaa inaan ka hadlo oo la ogaaday inuu ka dambeeyo Muuse ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud. haddaan ugu cusubtihiin subscribe-ka like noo saara. haddaan ku sii socdo waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadhii Said Cali uu gubay odayga markuu yiri ninka gabadheeda gubay hala dilo magna uu diiday waxaa la raadsaday ninkii hore ee gabadha ka dhintay caruurta u dhashay aabihiis oo ka shaqeeya maqaayad ku taala Sacuudiga. waxaa lagu yiri nin maqaayad ka shaqeysid waxa ku dhaanta wuu diiday odaygii ahaa Cabdicasiis ee gabadha odaygii dhali waa uu diiday magtii 100,000 baan ku siinaynaa ilmaha awgood baa tahay gabadha xalkeeda ayaga caruurta iska leh 100,000 baan ku siinaynaa aduu qaado waa cafiyeen dheh Said Calina iska sii daa. waxaas ku dhahaya Said Cali walaalkiis odaygii dhaaranayay oo Said Cali adeerkiis ahaa odaygu waa uu yeela nin 100,000 loo sheegay oo maqaayad ka shaqeeya wuxuu isir ka faa'iideyso odayga halkan ku sawiran oo u jeedaan jaamac geelle ninkan weeye odaygan weeye qansulkii joogay Sacuudiga wuxuu ahaa Said Cali in adeerkiis ee magti isla bixiyaan oo la cida warqad buu soo qoray warqad baa la soo qoray odaygiina laga soo qoray waxaa li odaygii uu cafiyey Said Cali hal iska sii daayay. adduunku waxaan la arag gabar aabaheed nool yahay oo la leeyahay gabadha magteeda asagu ma uu lahaa weligeed wax la arkay oo la maqlay ma aha. gabadha hadduu qabay wiil oo wiilka xataa hadduu noolaan lahaa xawaadle xataa hadduu noolaan lahaa gabadha magteeda ma uu soo sheegteen maxaa yeelay asagu muu dhalin. gabadha waxaa dhalay Cabdicasiis ayaa awood u leh halii dila dhihi kara gabadheeda ninka dilay maxaa yeelay asagaa dhalay. ninka gabadha qaba gabadha magteeda ma uu lahaa wuxuu leeyahay dhaqaalkeeda ayuu leeyahay. marka diin cusub ay la yimaadeen qoladii habeer geedir diin cusub ay la yimaadeen fulinimo inay dadka dilaan bay rabaan fulinimona darteed waxay rabaan inay noolaadaan. markaan waxaan lahaa nimanka habeer geedir niman yahow laba kala saara inaad baqdaan oo aad tiraahdaan yaa nala dilin aad dhahdaan ay wax dishaan labadaas iskuma helaysaan. qofkii qof dila diinta waxay leedahay hala dilo odayga hadduu yiri hala dilo waa la dilayaa. ninka la yiraahdo Said Cali gabadha kas buu u gubay wuu sheegay baa liya xataa inuu intuu gubay albaabka ku soo xiray. nin adduunka ka naxariis daranna ma jirto ilaahayna raalli kama aha in muslimka la iska dilo la gubo. waxaan oran lahaa reerka Said Cali hooyadiis iyo walaalihiis iyo Said Cali wiilka odayga adeer ku ah iyo walaalkiis waxaan oran lahaa walaalkiin waa dhig yacab asagana waxaa u fiican xadka in laga oofiyo maxaa yeelay dhiig muslim ayuu qabaa. taas haddaan halkaa uga baxo ninkii la oran jiray Xasan Sheekh Maxamuud
masaajidka ilaahay wuxuu ka soo sheegay been, beedka ilaahayna been lalama tago. wuxuu yidhi raalli kama noqonayno badda Soomaaliya in la qaato. afkiisuu ka yidhi masaajidka garamaya wadaadka maxoogaa buu u taagay oo shaah buu siiyey. mikrofoonka masaajidka unbuu ka hadlaa, raadiyaasha lama hadla xasan. hadda waxaa la soo ogaaday badda inuu asaga saxiixay in baddaas siiyo Ethiopia. wuxuu u saxiixay nin kaliya Muuse Biixi inuu ciddu doono la heshiin karo, ayuu Muuse Biixina u saxiixay. heshiiska saasuu u dhacay. xasan wuxuu rabay lacagta inuu asaga helo, muusena asaga inuu qaato ayuu rabay. saasuu Ethiopia asagana ugu saxiixay. waxaa ka hadlaya ninkan magaciisa la dhaho, ninkan u qaabilsan Soomaaliya, u qaabilsan golaha ammaanka, u qaabilsan waliyaal bedel. bal ila dhegeysta hadalkiisa iyo suu sirta u fashilayo. dhegeysta wacan. Soomaaliya qaramada midoobay ahna xubin ka tirsan gudiga difaacidda madaxbannaanida Soomaaliya. walaal waxaan rabaa inaan warbixin yar iyo jawaab idinka siiyo sida wax u jireen oo kooban. si guudna waxaan soo bandhigi doonaa lana sheergareyn doonaa saxaafadda iyo publica markii loo baahno caddaymo. waxaan idiin sheegayaa arrin idinka qarsoon dadka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed oon raba inaan idiin sheego. walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego arrimahan badda intayna bilaaban sanadkii hore June 2023 dowladda Ethiopia waxay diyaarisay shir looga hadlayo Red Sea waxayna u yeertay dowladaha Horn Africa iyo Red Sea saaran. wax arrin oo Red Sea oo badda oo damaca oo Ethiopia ay markaa ku dhawaaqdana ma jirin. waa sanadkii hore dhexbartankiisii June. dad khubaro ah oo aqoon leh oo xilka dunaasiyada ku takhasusay ayaa loo yeeray oo kooban oo ka soo jeeda dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti iyo dowladaha Red Sea saaran. aniga oo ambassador ciid bedel dadkii Soomaaliya laga cazumay, qofkii Soomaaliya laga cazumay baan ahaa. shirkaas wuxuu dhacay markii hore August, markii dambena waxaa dib loogu bedelay 21 September 2023. invitationkii shirkaas la igu soo diray waan qaaday, waxaan u diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. waan la sheergareeyay, waan kala hadlay arrimaha Red Sea iyo Horn Africa iyo wixii soo socda, iyo inay invitation iga timid xarun diblomaasiyadda xiriirka caalamiga oo sabab ku taala layguna cazumay. madaxdii markay tashteen waa igu soo noqdeen, waxay ugu yiraahdeen ambassador waana xushmaysay, sharaf aad leedahay, waa lagu sharfay, waa lagu yeeray, invitation aan lagu sameeyay. sidaa awgeed waxaan kaa codsanaynaa inaad shirka ka qayb gelin oo aad ka joogto. shirku wuxuu dhacayaa idinkugu celiyo wax Red Sea iyo wax Ethiopia iyo wax hadal oo bilaawdo male. waa markii ugu horreysay la rabay arrimaha in la bilaabo. shirkaas Red Sea looga hadlayna wuxuu dhacayaa 21 September 2023. anoo ixtiraamaya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha codsigooda, shirkii waa ka baaqday kama qaybgelin. waxaa la isoo diray tiirkii aan uga qaybgalayay shirkaas 7 September 2023 Ethiopian Airlines muqdisho ka soo baxayo oo adsaba imanaya. markay sidaa tahay email baan u diray, waxaan ku iri walaalayaal raalli ahaada, iima suurtoobayso inaan shirkaa ka qayb galo. ra'iisul wasaare Xamse oo safar ku tagay Dooxa ayaan Dooxa iskugu nimid, arrimo badan baan ka wada hadalnay. kadibna New York baan aaday oo aan shirkii UN General Assembly saarlaanka shiraan aan kaga qayb galay. anoo New York jooga 7 September ayaa la isoo diray tiirkii aan ku aadi lahaa shirkaas. wasaaraha iyo madaxweynaha waa ku celiyay, waxaa lagu yiri ka joog. waa ka joogay shirkii kama aan qaybgelin. email baan diray aan leeyahay raalli ahaada kama qaybgeli karo. saasaa uga baahday.
inta la baxay ayaa caynte loo diray tigid la keenay Addis Ababa shirkii Red Sea ee anigu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha tegina yiraahdeen uu caynte tegay ka qayb galay ka khudbeeyey statementina ka akhriyay shirkaas caddaynteediina waa haya aniga shirkaas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha tegin bay dhaheen waa ixtiraam waa ka aqbalay caynta invitation loo diray Addis Ababa tegay ka qayb galay shirkaa ka khudbeeyey shirkaasna wuxuu dhacay 21 September 2023 Soomaaliya ninka uga qayb galay cayntu ah caddeemihiina waan hayaa in aanu shirkaa ka baaqday aanu madaxweynaha ixtiraamay ra'iisul wasaaraha cayntana uu ka qayb galay caddeemihiina waan hayaa soo dhigay waa qodob kale waxaan rabaa inaan idiin sheego kadib September markuu soo dhacay wasaaradda arrimaha dibadda waxay diyaarisay report shirkii Red Sea waxay ku dhawaaqday policy xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kadib wuxuu qabtay shirar badan war-saxaafadeed buu qabtay waxaana ku caddeeyay Ethiopia dareemayso arrimaha Red Sea kadib wuxuu tegay baarlamaanka Ethiopia wuxuu ka akhriyay khudbadiisii kadibna sanadkii saasuu ku dhamaaday January markay marayso sanadka 2024 waa kii Muuse Bixi loo saxeexay heshiiskii marka June bay arrintan bilaabatay qofkii lagu casuumay waa aniga qofka aan ka qayb gelinay madaxweynaha ixtiraamo waa aniga ninka ka qayb galay ee albaabka furayna waa Cabdi Caynte caddeemaheedina waa hayaa shirka ninka ka qayb galay kadibna Ethiopia policygeedii dejisay iyo saasaynu ku dhawaaqay taas dadka Soomaaliyeed ha ogaadaan taariikh way isqoraysaa caddeemaheedina saxaafadda uu soo bandhigayaa in shirkaas aan ka qayb galin invitationkiina aan hayo tigidkiina aan hayo emailkii aan eri kagama qayb galayaan aan hayo Cabdi Cayntana inuu ka qayb galay ka khudbeeyey tagay shirkaas caddeemaheedii waa hayaa taasaa la socda guddigii baa la dhisay January 17 guddigii wax badan ku dheeraan maayo Zoom baa 5 jeer lagu shiriyey waxaa la diiday xamar inaan isku nimaadno suxna loo maamulay budget baa la gudbistay madaxtooyada budgetkii laga helay waa la iska isticmaalay si guud baan uga hadlayaa markay 5 bilood ay sidaa tahay guddigiina laga diiday inaan kulano isla guddiga dhexdiisa waxaa rabaa inaan ii sheego in mas-uuliyiin ka mid ah ay la kulmeen Etoobiyaanka oo is arkeen la shireen kala hadleen arrimaha MOU one-to-one kala hadleen warbixinana laga diyaaray iyadana waa idin xaqiijinaya caddeemaheediina waa haya markii guddigii lagu takarfalay shaqadii qof iska yeeshay wuxuu rabana laga samaystay aniga waxaan go'aan ku gaaray qadiyad Soomaaliyeed way qofku leeyahay ma jidkii ugu habboonaa aan ku difaaci karay inaan ku difaaco anoo ah safiir hore mas'uul ah guddiga ka tirsan Soomaalinimada iyo qadiyadda difaacaya wariye dhammaantiis waad maqashaan suun ninkan u hadlay wuxuu sheegay in saxiixataa dowladda Soomaaliya ay u dirtay ninka la yiraahdo magaciisa Cabdiraxmaan Caynte waxa uu Xasan akhrinayo oo dhanna inaysan waxba ka jirin madaxweyne xasan wuu ku talagalay intuu joogo in Soomaaliya gato wuxuu Xasan u saxiixay baa la yiri markii hore Ethiopia berbera ayuu u saxiixa markii hore markii Muuse Bixina wuxuu saxiixay awdal baa la yiri marka badan in la gado mar walba saxiixaas awdal iyo kamberberaba Xasan asagaa wax ka ogaa laakiinse Muuse lacagtii ayuu kala leexday halkaasaan dagaalkii ka yimaaday wax ka jira ma laha badda Soomaaliya Xasan inuusan raali ka ahayn in Ethiopia la siiyo Abiy Ahmedna nin subuu ahaa haddana Turku waxay leedahay la yiri ciidamada Turkiga uu sheegayo badda ilaalinaya Turku waxay leedahay waa inay hesho Ethiopia bad maxaa yeelay saxiixii madaxweynaha ayay Turki arkeen in badan Ethiopia la siiyo in lagu talagalay laakiin wax sii soconaya ma aha maxaa yeelay awdal waxa iskale dadka iskale oo dadka degan oo iskalena yeelimayaan in la qaato dhulkooda oo Ethiopia
ay dhahdo badda kuma dabaalan kartaan, lacag keena, in Oromo ay soo degto Awdal iyo agaarkeedana reer Awdal ma yeeli doonaan. Marka Xasan Sheekh Maxamuud intuu joogo waxa weeye wuxuu rabaa wuxuu gadan karo inuu gato, qabriyaashii buu gadanayaa, wuxuu gadanayaa meel walba oo ay dowladdu leedahay. intuu hore u gadan karay warshada caanaha xaaskaygan siiyey buu yidhi, adaan kuu hibeeyey, Soomaali dhan way og tahay. Marka Soomaaliya idinkaa laydinka rabaa inaad dhulkiina ilaashataan. Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu rabaa lacagta intuu aruursado Tanzania inuu guryo uga dhisto, waana uga dhistay. wax kastana wuxuu siiyey Tanzania, wuxuu siiyey gabadhii tartamaysay baarlamaanka adduunka u tartamaysay la dhahayay Marwo, booskeedii wuxuu siiyey Tanzania. gabadhii kale oo iyadana Somaliland ka soo jeeday oo u tartamaysay gudoomiyaha midowga Afrika wuxuu siiyey Kenya. Raila Odinga ka gatay. Marka Xasan Soomaaliya wuxuu baabi'inayaa wax kasta wax uu farmaajo diyaariyey oo dhan, kuraastuu farmaajo diyaariyey oo dhan wuu baabi'iyey. kursigan ayadana golaha ammaanka xubinta aan joogtada ahayn, kursigaas waxaan filayaa inuu ka gadi doono Ethiopia ama Kenya ama Tanzania. marka ninkaani wax wejiye ma laha, waa ninaan Soomaaliya u dhalan. Maxamed Siyaad Barre ayaa soo koriyey, wax kastoo la soo koriyey oo orphan lagu soo koriyeyna dee waad ogtihiin wixii wacal orphan joogi jiray kuleyna ayuu yeeshay. hadde qof sharaf leh oo Soomaaliya u dirnaxaya oo Soomaaliya u dhasho aabihii hooyadii dadkii yaqaana Soomaaliya inuu sagateen bay la tahay. marka Xasan Sheekh Maxamuud waa ka shakisanahay ninkuu yahay. hal ogaado Xasan inuu dhulkoo dhan xaraashan doono. barnaamijka halkaasaan ku joojinayaa. commentiga hoos ku soo qora, subscribe-ka like-ta noo saara, daawashadiina waa ku mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. nabaday.